وحكى لها يندكاس الصفات كوغ إلهي بشيغو يري يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا نذر هدي أي قلان عدة أي هدي إلهي النذران نذر كإلهي لقلين ويبوحينيان هدي بني آدم أي بلن لقلانا بلنك بني آدم كقبح مايان ويفولينيان بلنك مالك يكبقيان ومالك قيامها إلا يري إلهي بالله وظهر جوغ سندونا مالك عسى كو حسابتمايانو adduunka dusheeda haday ballanka ilaahay la galeen ay ka baxaan oo ballanka ilaahay la galay waa maxay inaan ilaahay aan keligii caabudno oo keligii aan barino oo keligii aan rajayno oo keligii aan ka cabsanno ballanka ilaahay baan la soo galay maalintii nabi aadam calayhi salaam dhabarkiisa intuu ilaahay masaxay arwaaxda bani aadamka aadan hortiisa lagu sheediyay ee ilaahay uu ku yiri alastu rabbukum rabbigi inni umiyana nahayn kulligeen aan niri qaaluu balaaha maalinka ballanka aan la galay adduunka dusheeda inaad ku ilaaliso waxa ka keenaya waa dad aakhira ku xisaabtamaysa weeyaan bani aadamka ballanka la gashana ilaali oo dadka ballanka ilaalinaya waa dadka aakhira ku xisaabtamaya dadka ballanka aan ilaalinaynin waa dadka aakhira aan ku xisaabtamaynin weeyaan marka sifaadkaas lagu amaanay dadka qarniga jooga adduunyada طيب naka qarnigeena maanta iyo qarniga farqi maxaa u dhaxeeya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون إلهي بانكم هذنينا مساجد كان جامعة بركيسا علماء ذي أجلدوا أي دحجوكتو إنكو كل ميي إنكو ماركتان براروجينينا sida walaalaheen ba ay u sheegeen cinwaanka khayrul quruni qarni xadiiskaasi waa xadiis saxiix ah oo Bukhariga ku yaala rahimahullah kitaabkiisa barakaysan oo nabigeenu sallallahu alayhi wa sallam uu tilmaamayo uu inoo sheegayo uu leeyahay qarniyada qarniga aan joogo ayaa ugu khayr badan buu rasuulku yiri waxa ku sii xiga buu nabigu yiri hadana qarniga kale ee ku sii xiga waxa kale ku sii xiga buu nabigu yiri hadana qarniga kale ee ku sii xiga saddexdan qarni buu nabigu sheegay kadibna nabigu wuxuu yiri gadaashooda waxa iman doona quruun dadka ku nool ay yihiin dad maragay iska furayaan buu nabigu yiri ayagoo marxaatiga inay furaan baan laga dalbin nidar bay galayaan oo way dhaaranayaan dhaartana ma fulinayaan waa khawana buu nabigu yiri oo aamina illa aaminaba waa ku yar yahay buu nabigu yiri waana dad zamankoodaasi ay ku badan doonto maartana dadka caayilsan ee shilis qarni marka waxa la yiraahdaa waa zaman kaliya oo dad kaliya adduunka korkeeda ay wada joogaan marka qarnigii nabigeenu adduunka uu joogay sallallahu alayhi wa sallam wuxuu ahaa khayrul qurun waayo nabi maxamed oo khalqiga ilaahay abuuray u khayr badan oo ugu sharaf badan oo ilaahay uu maamuuso ilaahay uu karaameeyay asaga ayaa marka adduunka korkeeda socday markaas ilaahay baa nabigiisa amaano yiri wa innaka la'ala khuluqin 'azim إن فضله كان عليك كبيرا وكان فضل الله عليك عظيما ورفعنا لك ذكرك إلهي بنبي محمد أماني عليه الصلاة والسلام شخص إلهي أماني إلهي وكرامي أي أدوك كورك هذا جوغي دحدتك الله جوغي النبي محمد مركا رميستنا وحد على أصحاب محمد بيحاي وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم waxay iyaguna maqaamka ay ku heleen waa kow nabi maxamed bay arkeen oo nabi maxamed bay la joogeen marka labaadna shariicadu ayaka korkooda ku soo degtay oo shariicadu waxay ahayd dadka dushooda shariicadu ay ku soo degtay amar xagga Allah kama iman dadku ugu horeeyay qaati ayaka ahaayeen wax nahiya oo ka jooga ilaahay uu leeyahayna ma jirin ilaa dadku ugu horeeyay nahiga la amray inay ka istaagaan ayaka ahaayeen
إيمان يقين هدي لنا أمر أيان أيك أبوه الرئي أحكام هدي لسعود جينا ذاتك قاته أبوه الرئي أيك هايان وحكى له زمن كودا أرلاد كوركيدا إيمان جبريل عليه السلام وصورة آدم ينتو كل مادو صحابة قاركون أي أرك جرين وحكى له أركان معجزاتك إلهي نبي محمد عليه الصلاة والسلام وصيي القرآن كوكاها معجزات فرابضان بنبي جينا للسيي معجزات أقوين نبي محمد إلهي وصيي وقرآن كايه معجزات كلام فرابضان النبي هو لها وصحابة وي أركان رجح نبي محمد سلام يا نبي محمد أصحابته وي أركان جيد ونبي ويري وقركي وكيا اللي ما هنا قركي نبي وجوده وصوت الله بي ونبي جهورتي صدق جركو الشهاتين الصحابة وي أركان أو كعبنا ينكي إسكالهانا والنبي صلى الله عليه وسلم على شيء سأوشيغنا ينا صحابة وي أركان بابا عتد النبي محمد وبيا أي كسو بوديانا صحابة رسول وي أركان معجزات كاس وأن لسوكو بكرين القرآن كوهو يهينا صحابة النبي محمد وي كأركان عليه الصلاة والسلام طيب dadka qarniga joogay maxay ku noqdeen khayrul qurun waxay ku noqdeen waxa ilaahay ku amaanay inay ahaayeen dad muuminiin oo ilaahay aaminsan wal mu'minuna kullun aamana billahi wa malaa'ikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaykal masir ilaahay ba ummarqaati kacay inay yihiin dad muuminiina oo ilaahay aaminsan وملائكة آمنسن وكتبت آمنسن ورسوش آمنسن وآخره جرت آمنسن وقدر وحي الديود الشرعي خير كان عاينا إنه إلهي قدري ضد آمنسن إنه يهين إلهي عز وجل مرق أبوحي إلهي وأمر خاتك عاي أحاك له إلهي جل وعلا أمر خاتك عاينا يهايان محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود إلهي بالقرآن كشيء كو أماني قرآن كان والله شيء توراة بالله شيء إنجيل بالله شيء أخلاق دودي ونكسلت بالقرآن كإلهي كشيء فدوحي هايين إلهي بآمنين بالله يدي وحاك له هايين ضد دحدودنا يسكن لحريستا ضدك قال ذا كو أدق بهايين بإلهي ومنين بيهايين دحدوده اسكو نحريستا قالدنا way ku adkaayeen oo way ku adkaayeen dhaxdoodana dad isku dabacsan oo isku naxariista oo iska warhaya oo isku damqada ayay haayeen asxaabu rasuulillaah sallallahu alayhi wasallam waxa kale oo lagu amaanay dad maaragtaan salaada ay ku dadaalaan salaada ay ku dadaalayeen sujuuday dheeraysanayeen rukuucday dheeraysanayeen aasaarta islaamka noloshooda ka muuqatay hadday masjidka joogaanna cibaado ayaa ka muuqatay hadday masjidka bannaankiisa joogaanna allah ka cabsi baa ka muuqda diin labay haayeen marka khayrul quruni qarni nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxa uu leeyahay qarniyada qarniga maanta aan joogo ayaa ugu khayr badan buu nabigu leeyahay sababta qarnigaasi ugu khayr batay maahin waxa inaku aan haysano wax ka badan bay haysanayeen maaha laakiin diintay kaaga horeeyeen أخلاق ونكسب كاغو الريين والذين تبوأوا الدار والإيمان يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه وأولئك هم المفلحون بإلهي ساسا لغا أمان الصحابة رسولك الله رأيك النقضية مدينة الدقنايين ذاتك مدينة الدقن محل لغا أماني أخلاق ونكسنين لهايين بلغو أماني مؤمنين تجعلايين ذاتك دين الإسلام كون نسبت شيغانيا أي أقلدو دا يهويغو كسو دوينيين عد اللي عد إلهي درتي أسعوتا إلهي درتي أسو هجرون إيسا أي جعلايين ونسبت دين تيكو جعلايين قبيل لكم أي جعلين مال لكم أي جعلين مصر لكم أي جعلين وعيكو جعلايين يحبون من هاجر إليهم كودا حقو دا أسو هجرودا أي جعلايين إلهي تبارك وتعالى والنبي محمد عليه الصلاة والسلام باب كبيري إنه النقدام ضد
إلهي درتي اسكو جعل هذي وح جعلانا يا إلهي درتي اسكو جعل هذا هذي عد أي كديران يا أما إن عيانا أي قلنا عن ما ركتنا دقف قاس إلهي دينك سكما فيها وحي هايستانا ويودر بدين ولا لهم نقادوكو سحدان بيفضلين لكن ولا لكو مسلم كان مهاجر وهبيك الله عشاء يسوي عشاء وبصدق تعالى صحيحين كان صحابي أبو طلحة رضي الله عنه أن أوري نبي صلى الله عليه وسلم نبى مسجد سيد مدي نقاس باهي بكشة مسجد النبي قد حديث ومحول يا رسول الله نبى هم بناهي وباهي باي كنتي هلا مرتقى هذا لأن مركب النبي يقول إيه فريس مركب النبي يقول فريس عليه الصلاة والسلام والنبي يقول نبى الدروح وكيري بلغ الله ذي أرض وحيا الله كور دون وكور كان سقالك أقل النبي يقول هذا الله صومري وحلعنا ولا قصوا إلا بيلا عظم ويان قرنك والنبي كل شيء إنه هي خير القرون وقرنك قال النبي محمد عطلعنا أي سنول لكن بيلا عظم بيان هنا كان ما تقرنك إنك ورم الزمن كمان هناك وأنجب بركاب النبي صلى الله عليه وسلم بركي بيا ما هنا بال لقصوا يجوا النبي صحابة كويري ورنك عاوى يا مرتقى هذا يجوا النبي يقول نك عاوى يا مرتقى هذا صحابي أو أنصاري يقول له جرى أبو طلحة في بعض الروايات بقول سيأيي أنا مرتقى هذا النبي الله نكا قعنت صوغبته والله صوردي غير كيسيبو كيري أكرم ضيف رسول الله لأن كان إلى السعود النبي محمد بيقول صودري وضيف كي النبي قوي يعني النبي أيام مركو مرتقات يسوي في دي لكن مركو النبي قال الذي سوحي وكواي أنا النبي يقول سو حوليه بل ما حد هيسابو كيري وعيد أقلك عمت الله عنا وقفوا النصية ما تعلو لكن عمتدي عرورته أي عون لهيد كو عشين لهيد قوم بأقلك يا الله بيكتب مركابو كيري يالك هذا سيحي يقول بل سيقولوا سيحي ويرعي يرسي ومدداليو أنت نوبتك وقلت لك شيء يسقى هردك بكيري هذا يعني أنا فينوس كي نود دمي دنا مركاسي تدو حنايا أي أنا فكون رقاجين الناي بكيري وهلا بين كلية هلا بين بقاجوات كيستند تصدق الله صعب وعلى قبول يده عمل بدن وقبته إلى هيك أقبل ما هن حمودين قبول يده بالليله وعمل حل إلى هي وكسو إيجي أقبتد وإلى هي عمل كاكا أقبله ويان جيس النمدنا وحفر لما تنك الصعقف الله سعوتا ما هنا حل الله بحنا أو أتكيسته وعلاش أدودناها يعقل بقى علاش أتكيسته هم بجيس النمدنا قد رتابا لي هذين كاسو صحابي قاسي isagiyo ilmihiisii gaajay ku seexdeen laakiin ninkii dayfka ahaa intii ciyaalka loogu talagalay la hor dhigo lagu cuntaysiiyay markaasuu nabigu sallallahu alayhi wasallam waagi markuu bariyay nabigu ku yiri laqad ajiba Allahu min sani'ikum bi dayfikum al-laylata ya aba talha adiga iyo reerkaagi adiga qoyskaagi xalay toole ninka martada inii ahaayo diinta martada iniigu ahaa saad u qabateen aad u soo dhaweyseen aad u maamuusteen إلهي بكفر حيب النبي عليه الصلاة والسلام آية مركا كتال سورة الحشر أواخر كذا آية صدقت إلهي أوليه والذين تبوأوا الدار والإيمان وكون دارتين نقايين مدينة المنورة أهل الإيمان دار الإيمان بين نقايين دقنايين وصفدوا دوا محي عد اللي عدي إلهي درتي وسعتا الدين وسعتا إسلام ما وبصوا إلى تيك حقه ده أي سود وين يا ما إلهي تبارك وتعالى عدا بسود ويسنا يا أنا نيدي بقلبي قوة كبحضي قبيلتي بقلبي قوة كبحضي اسكو ودن بان هاي بقلبي قوة كبحضي اسكو طلبان هاي بقلبي قوة كبحضي وحاسود وحكسر يا للسيي محل السيي ماشي كسر رئيسي استاجين ومحي مسلمين بان هاي وحا ولا لكنا هاي ولا إله إلا الله محمد رسول الله الأخلاء بعضهم يومئذ بعض الأخلاء يومئذ بعضهم الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين يا عبادي لا خوف عليكم اليوم وكإلهي كل شيء في سورة الزخرف أواخر كذا ذاتك أدونك الدش ذا وحكى لك صاحبك أها سياسة بين صاحبك وأهايين دقالي صاحبك وأهايين قبيالات بين صاحبك وأهايين منصب الدنيا اسكو جعلايين مالك قيامها با إلهي يري بربرك كلي كل غنيان عدو آن اسأركي كرينين آن اسمغلي كرينين
aan ishorjoogsan karaynin ila almuttaqiina baa ilaahay yidhi kuwii adduunka dusheeda ilaahay ka cabsooni jiray mu'miniinta ahaa kuwaas iyagu banka qiyaamo way ku kulmayaan waa kuwa sideenoo kale u kulmo weeyaan ilaahay dartii baan u kulannay iminka innaku masaajidka waxaanu iminay waa ilaahay dartii rajulaani taxaabaa fillaah ijtamaca calayhi watafaraqa calayh laba nin oo ilaahay dartii isku jeclaatay buu nebigu yidhi maalinka qiyaamaha hadhka ilaahay bay hoos joogsanayaan waa maalinta hadhka alla mooyaane hadh kale uunan jirin ayay hadhka ilaahay ku kulmayaan buu rasuulku yidhi allah inaga dhiga kuwaas marka ukhuwada islaamka ayaa asala taasaa marka reer madiina ay ku sifaysnaayeen qarniga nebi maxamed uu leeyahay qarniyada qarnigaygaasa ugu khayr badan dadka ku noolaa dad dareenkaa qaba ayay ahaayeen dareenkee dareen islaam bay qabeen muslim mu'min muxsin dareenkaasaa lagu beeray iyaga marka waxaa kale ahaayeen dadkaasi sifaadkooga ilaahay baa sheegoo yidhi yuufuuna binnadri wayakaafuuna yowman kaana sharuhu mustatiira nadar haddii ay galaan cidda ay hadday ilaahay u nadraanna nadarka ilaahay la galeenna way buuxinayaan hadday bini aadan ay ballan la galaanna ballanka bini aadanka kaga bixi maayaanna way fulinayaan ballanka maalinkay ka baqayaan waa maalinkee waa maalinka qiyaamaha ee la yidhi ilaahay baa la wada hor joogsan doonaa maalinkaasay ku xisaabtamayaanoo adduunka dusheeda hadday ballanka ilaahay la galeen ay ka baxaan oo ballanka ilaahay lala gala waa maxay inaan ilaahay aan keligii caabudno oo keligii aan barino oo keligii aan rajayno oo keligii aan ka cabsanno ballanka ilaahay baan la soo gallay maalintii nebi aadam calayhi salaam dhabarkiisa intuu ilaahay masaxay arwaaxda bini aadanka aadan hortiisa lagu shaydhiyey ee ilaahay uu ku yidhi alastu birabbikum rabbigii innii miyaanan ahayn ee kulligeen aan nidhi qaaluu balaa haa maalinkaa ballanka aan la gallay adduunka dusheeda inaad ku ilaaliso waxa kaa keenaya waa haddaad aakhiro ku xisaabtamaysa weeyaan bini aadanka ballanka aad la gashana ilaali oo dadka ballanka ilaalinaya waa dadka aakhiro ku xisaabtamaya dadka ballanka aan ilaalinaynin waa dadka aakhiro aana ku xisaabtamaynin weeyaan marka sifaadkaasaa lagu ammaanay dadkii qarnigaa jooga adduunyada ayib innaka qarnigeennan maanta iyo qarniga farqi maxaa u dhexeeya xagga teknolojiyadda haddii la eega innakaa ka horrayna xagga muwasalaadka innakaa ka horrayna xagga maaragtaan isgaadhsiinta innakaa ka horrayna xagga gaadiidka innakaa ka horrayna xagga aqallada iyo guryaha iyo magaalooyinka innakaa ka horrayna xagga dhaqaale samaysta innakaa ka horrayna xagga cadadka innakaa ka tiro badan xagga cudadkan innakaa ka hub badan xagga maaragtaan mujtamacan innakaa ka mujtamac badan laakiin way kaa khayr badnaayeen qarniga nebi maxamed adduunka uu joogay gaadiidka la isticmaalaya wuxuu ahaa baqal iyo dameer iyo awr iyo faras iyo lug baa la adeegsanayey xagga muwaasalaadkana waxaa la adeegsanayay mataqaanaa xagga muwaasalaadka xagga itisaalaadka iyo warisgaadhsiinta waxaa la adeegsanayey bariid baa la adeegsanayay bariidkuna shaksi buu ahaa warqadda uu ka qaada madiina masar waxaa lagu geynayay beliya 20 cisho loo soconayo lagu geynaya qaahira rag baa warqadaha loo dhiibi jiray oo u dhaxayn jiray boqorrada xagga dhaqaalahana dadku waxay u badnaayeen dad danyaray u badnaayeen fuqaraa bay u badnaayeen magaalada madiina dhaqaalo badan ma oolin aqalladii nebiga sala allahu calayhi wasalam caaisha waa tii tidhi 3 bilood baa noo bilanaysay ayadoo 60 habeen iyo 60 maalmood ay tahay oo aqallada nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam dabka dharigaa la saari jirin curwa radiyallahu canhu oo waraysanayay baa ku yidhi yaa umma almu'miniin 60 maalmood iyo 60 habeen haddii dhari dab aan la saaraynin aqallada nebi maxamed maxaad ku noolaydeen bal noo sheeg waxay tiri 2 shay baanu ku noolayn tamar iyo biyo man cuninay timirta iyo biyaha abaa hurayra radiyallahu canhu waa ninka maqlay siiradiisa masaajidka dhexdeedu gaajo dhulka ugu dhici jiray gaajo dhulka intuu ugu dhaco ninka magaalada madiina ku cusub ayaa odhan jiray war waxaaga waalani ka kac buu odhan jiray maxaad la dhacdhacaysaa abaa hurayra waa kii lahaa gaajo lama dhacayn waa liye waxaa la dhacayay buuhi waa gaaja la dhacayay buuhi
أبا هريرة وكري إنه شقيستو حوكسدو لكن علمه النبي محمد كويرين عليه الصلاة والسلام أحاديث ما أنت إنه قرن علماء المساجد إنه لا نحفظه إنه لا شيء إنه وحكت الماما أيها أبا هريرة رضي الله عنه إنه إلى لنا إنه حفظه إنك darkan inagu maanta aan haysano marka xaafadeeda la dhaqaayo aqaladeena waxa la wada hudhar in la yiibinayo maalinta dharka la meedayo sida loo wada dharkii way bateen weelashiina way bateen aqaladiina way bateen materialkii baa noo batay laakiin aqaladeena waxa ku yaraatay alla ka cabsiga ay nagu yaraaday aqaladeena diintii ku dhaqankii diinta ay nagu yaraaday aqaladeena waxa ku yaraaday maaragtaan tacalluqi dadku ilaahay ila lahaayeen baa inagu yaraaday ayaka aqaladooda adduunyada kumay badnayn laakiin inaka aqalada adduunyadeena ku badan aqaladoodana diinta ku badnay mujtamacay ku dhex noolaayeen wuxuu ahaa mujtamac iimaan leh oo amaano leh laa iimaana liman laa amaanata lahu walaa cahda liman laa diin walaa diina liman laa cahda lahu ولا دين لمن لا صلاة له بنبي يري ولا دين لمن لا صلاة له وفك أمانة لهيم نبي يري إيمان مله وفك بلن كأن إذا لنا الدين مله وفك صلاة لهيم نبي يري الدين مله صلاة دين الإسلام هو حي وجرتا هل كم هذا حاسس وقفك بين هذا كوجره قرنيجنا ما أنت إنكم وحكستوان هاي سنة لكن ضدنمديني با hoos u taala maanta amaanadii baa inagu yaraatay cadaaladii baa inagu yaraatay ihsaankii baa inagu yaraaday dulqaadkii baa inagu yaraaday sabirkii baa inagu yaraaday tacalluqi ilaahay aan la lahayn baa inagu yaraaday akhlaaqdii wanaagsaneed baa mujtamaca ku sii yaraanaysa alla ka cabsigii baa inagu yaraanaya maadada waa ka horeyna la iskuma hayo laakiin waxay naga horeeyeen oo xagga dadnimada weeyaan ilaahayna eegi maayo suurada iyo jasimka iyo jirka ilaahay eegi maayo qalbiga iyo amalku eegaya buu nabigu kaleey salaatu wasalaam inna allaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum ilaahay jirkiina eegi maayo buu nabigu kaleey salaatu wasalaam suuradiina ilaahay eegi maayo ilaahay waxa uu eegayaa buu nabigu qalbigiina iyo amalkiina ilaahay eegayaa ayaka qalbigooga ayaa dhaqmay oo qalbigooga waxa laga dhaqay shirkigii iyo gaalnimadii iyo buqdigii iyo xasadkii iyo nacaybkii iyo maaragtani adduunyo jacaylkii baa qalbigooda laga dhaqay oo qalbigooda ayaa saafi noqdo taahir noqday acmaashoodina waa ay toostayo acmaashoodina waxa lagu toosiyay alkitaab wa sunna ayaa lagu toosiyay jirkii inaga maanta jirkeena qurxinay laakiin amalkeena ma quruxsano inaga maanta suuradeeni waan qurxinay laakiin ma aragtaan amalkeeni ma quruxsano maanta ku saliya rasuulkeena qalbigeeni ma quruxsano dad yar way jiraan oo qalbi fiican laakiin inta badan maanta mujtamaceena qalbigeena uma fiicno qalbiga oo ilaahay qeyrkii ku tacalluq ma bay culimadu leeyihiin waa dhul qalbiga ilaahay ku tacalluq mana waa nuur bay leeyihiin wixii ilaahay ka soo haray ee lagu tacalluq maayo dhan ilaahay waa kugu imtixaamiyo ugu aadam calayhi salaam jannada markii la geliyay geed baa lagu ikhtibaaray geedkaana ibliis baa u qurxiyay oo ku yiri geedkan lagu diiday cunidiisa wixii laga heli lahaa ma ku sheegay buu ku yiri hadaad cuni lahaydeen adiga xaaskaadu ama laba malag baad ahaan lahaydeen ama waligiinba jannada ku waari lahaydeen oo jannada kama baxdeen buu ku yiri aadam calayhi salaam geedkii buu qalbigiisu ku tacalluqmay jannadii dhanaydu ku jiray baa laga xarimo laga soo dhex saaray baa leeyahay nabi yuusuf calayhi salaam isagoo jeelkii ku jira oo xarigiisa inuu ka soo baxo hadeetoola ay dhowdahay ayaa laba nin oo jeelka ka baxaysay midkii uu riyada uu cabiru ku yiri
waxaad noqon doontaa jaliisul malik ragga boqorka la fadhiistaad noqoni doontaa ee maaragtaana u sheego markaad u dhawaato ku dheh boqorka madluum la dulmay ayaa jeelka lagu iloobay ku dheh markuu ibraahim yuusuf calayhi salaam oo ninkaa qisadiisii qadiyadiisa u sheegayna waa la imtixaamo maxaa lagu sii imtixaamay 9 sano oo dambaa ilaahay jeelka ku sii daayay baa layidhi ibliis isagoo malakuutka ku dhex caabuda ilaahay malakuuta samaawaadka ku dhex nool oo halkaa ilaahay ku dhex caabuda wuxuu caabuda naftiisii amarka ilaahay ma adeecin amarka ilaahay wuxuu ahaa aadam u sujuud buu ahaa laakiin naftiisiiba u sheekayso ku tidhi aadan adaa ka khayr badan waxba ha u sujuudin naftiisiibuu ibliis adeecay naxariistii ilaahay malakuutku ku jiray baa laga soo saaray ilaa qiyaamahana malcuun baa laga dhigay hadhowna naar buu ku dambaynayaa baa layidhi isagu tacalluq haddii qalbigu ilaahay meelaan hayn hadduu qalbigeennu u jeesto ku tacalluqmo waxaad ogaataan halkaa waa lagu ikhtibaariyo ugu marka qarniga nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam oo adduunka korkeeda joogay dadka nebi maxamed la joogay hadday mii joogeen hadday magaalo joogeen hadday yaraayeen hadday waaweyn ahaayeen hadday rag ahaayeen hadday haween ahaayeen intaba nebi maxamed wuxuu ku xidhay ilaahay dadku inay baryaan ilahay wax ka qaataan ilaahay baa la baray waxaa la baray oo laga dhaadhiciyey dhulka waxbay nigama yaallaan wax walba xagga sare ay jiraan xagga sare eega ilaaha kaa'inaadka abuuray xidhiidh fiican la yeesha markaasaa kii miiga joogay ilaa kii magaalada joogay kii dhallinyarada ahaa dhammaan ummad waxay noqdeen ilaahay ka wada cabsoonaysa qofku hadduu ilaahay ka cabsoodana macsiyo inuu ku dhaco way adkaanaysaa salaadda inuu ka tego way adkaanaysaa ilaahay inuu caasiyo way adkaanaysaa bini aadanka xaqooda inuu ku tunto way adkaanaysaa been inuu sheego way adkaanaysaa ballanta inuu baajiyo way adkaanaysaa si sharciga islaamka aan waafaqsanayn inuu u socdona way adkaanaysaa marka qarnigaasaa la rabaa marka in la raaco qarniga uu nebi maxamed uu sheeguu yidhi qarnigaa aan jooga qurunta ugu khayr badan buu rasuulku yidhi ha eegin qarniga nolosha dadku ay ku noolaayeen ha eegin dadkaa la eega dadka waa run xagga gaadiidka iyo muwaasalaadka iyo nolosha iyo imkaaniyaadka iyo waxyaabaha nolosha bini aadamka fudaydinaya innagaa ka horumarsan laakiin xagga dadnimada iyagaa ka horumarsan been inay sheegaan way ku adkayd iyo xaq bini aadan inay u badheeraanna way ku adkayd dulmi inay geystaanna way ku adkayd ilaahay inay caasiyaan way ku adkayd nin dhallinyaro ah ayaa habeen iyaa nabigeenna u yimid calayhi salaatu wasalaam masaajidku ka dhex kacay yaa rasuul allah nin dhallinyaraan ahay laakiin zinadii ma dayn karaya maxaan sameeyaa zinada ha lay fasaxa buu yidhi markaa way saxaabadu yaabeen markaa buu nebigu yidhi wardaaya war u kaadiya ha ku degdegine ii soo dhoweeya aniga ii soo dhowow walaasha gabdha ma kula dhasheen ha way la dhasheen xumaanta adigu aad ku hamiday ee aad aniga ii weydiisanaysa ruqsadda in iyaka rag kale ula tagaan raalli ma ka noqon markaasuu yidhi may dhimashaa ka xigaa buu yidhi habaryaro ma leedahay haa eddooyin haa in waxaa lagu sameeye raalli ma kala noqon may dhimashaa ka xiga markaa buu nebigu yidhi anigana waxaad igu tiri zina ii fasax hadday dhacdo zina laguu fasixi lahaa gabadhaad ka sinaysanaysid ragga halkaa fadhiya ama unbay walaashii ay tahay ama eeddo ugu toosan tahay ama habaryaro ugu toosan tahay xumaanta adigu kuwaagii aad u diiday ayakuna kuwooda raalli kalama buu rasuulku yidhi markaa buu yaa rasuulallah dembidhaaf ilaahay ii weydiiye markaa buu soo dhowow laabtuu nebigu gacanta u saaray gacantiisii barakaysnayd calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi ilaahow dembigiisa dhaaf farjigiisana ilaahow ilaali xumaantaa uu ku haminayana ilaahow qalbigiisa ka masax buu rasuulku yidhi sidaasuu nebigu ku daway ku cilaajiyey cilaaj iimaan baa qalbigiisa ku jira iimaanka qalbigiisa ku jira ayaa u diidaya inuu macsiyadda ku dhaco
dambi inay tahayna uu garanayaa walaakiin nabigu uu yimid ku soo noqday walaakiin nabigu calayhi salaatu wasalaam sida xikmadda badan uu nabigu isagoo ku qanacsiiyay nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam baa lagu yiri rabbiga waxaad ugu yeedhaa dadka waxaad ugu yeedhaa dhinaca rabbiga dacwad ku salaysan xikmad iyo wanaagsan xikmadu waa sunnada weeyaan mawcidada xasanaduna waa quraanka bay culimadu yiraahdeen mawcidatul xasana waa maxay waa quraanka laana quraanku waa bayaanka ilaahay tabaaraka wa tacaala nabi walba qaabkii ummadiisa uu risaalada u gaarsiiyay iyo meeshii dacwada laga bilaabayay baa quraanka ku taala halkee quraanku ka bilaabay dacwada quraanku dacwada waxa uu ka bilaabay dadka ilaahay in la bar marka hore amarka bar amarka marka inay qaataan baa u dhib yaraanaya amarka la baraya amarku waa ilaahay ka amarka bixiyay waa ilaahay hadda dadku amarka ilaahay tabaaraka wa tacaala doonaan inay qaataan waa in marka hore dadku ilaahay ay gartaan ilaahay cadamadiisa saasuu nabigu u qanacsiiyey kii dhalinyarada ahaa marka inakuna waxaan u baahannahay maanta inaan ku dadaalno maaragtaan mujtamaceen oo dadka zamankan maanta jooga aan u tilmaamno war zamankan maanta aad joogto waxa weeyaan waa zamanada adduunka yimiday zamanadii ugu sharka badnaa buu zamankeenu maanta noqonaya innaka waayo wixii nabigu sheegay oo dhan ee amaaraatu saaca ee ashraatu saaca ee yaryaraay oo dhan zamankeena maanta way ku egyihiin waa zaman qof run sheegaya cidna aamini mayso ka khaayinka la aamini ka run sheegaha cidna ma doonayso ka masaajidka iyo diinta ku xiran cidna warkiisa sadaqi mayso ka munaafiqa maqaaxiyaha fadhiya warkiisa la qaadan naasixa ummadda u naseexaynaya warkiisa la qaadan maayo laakiin waxaa laga yaabaa ka qabqablaha ama siyaasiga warkiisa in la qaato dadku maanta mujtamacu ma dadka aqoonyahanka la yidhaha bay ku xiran yihiin badankoodu mise culammaday ku xiran yihiin ya orayaa lagu xidhan yahay aqoonyahan muxuu yaqaanaa marka waxaa laga yaabaa tahaarada inuunan aqoonin waxaa laga yaabaa man rabbuka su-aasha qabriga inuu ka warhaynba waxa sugaaya markaasaa lagu odhanaya waa indheer garato oo qarnigan 50 sane soo socota isbedelka mandaqada ka dhici doono inuu ka faallooday dhageysta islaantiisa ma tukato ubadkiisu diin ma bare ma yaqaano ma barin isagu ma tukado masaajidka ma lagu arkay meel lagu ma arkay laakiin waa aqoonyahanka reerkeena aqoonyahan waxa weeyaan waa ninka ilaahay yaqaana ee rasuulka yaqaana calayhi salaatu wasalaam ee aakhirada ku xisaabtamaya ee waxa ummadiisa u dana ee maslaxadu ay ku jirto ummadiisa u tilmaamaya kaasa ay dheer garato aqoonyahan la oranaya lidalika waxaan u baahannahay maanta walaalayaal mujtamaceena wuxuu u baahan yahay dad ilaahay ku xidhan dad dhalinyaro ah laakiin waaqac la socda maanta waaqac zamankan la yaqaana zamankan muxuu ku xun yahay muxuu zamankan ku fiican yahay oo inaad kala garataa zamankan runtii waxbuu ku fiican yahay waxa zamankeenu ku fiican yahay maanta waxa weeyaan masaajidii bay noo badatay meel walba darsi baa laga akhrinaya meel walba dugsi madrasad meel walba mu'tamaraad iyo jamaacad iyo ijtimaacaad iyo ilaahay dartii baa lagu dhawaaqaya meel walba ilaahay dartii baa lagu nasteexaynaya aalaadka dadku maanta ay haystaan ee inta badan sharka leenoo soo dhexmariyay khayr baa lagu soo dhexmariyay adiga waa xagga zamankan uu ka fiican yahay weeyaan laakiin zamankan maanta intuu dhib inoo geysanayo ayaa ka badan inta dheef inoo geysanayo waa zaman hadduu nabi maxamed uu sii sheegay uu yidhi waa nin dhamac hayo weeyaan zamanka ninka diin waa qabsanaya wuxuu la mid yahay nin dhambiil dhamac hayo kaloo la mid yahay maanta oo ay ninka diin haysta waxaa loo arkaa nin zamanka maanta aan la socon karayn wadaad meesha geeridu aadaaba lagu wadaad diin iyo adduunyana ummadii waa loo kala saaro gaala u kala saartay
وحل يري كتاب كان لا سعون كريم ما الزمن كان هارون الرشيد هذا كان لو لي يمدون لو يري قرآنك إنه علم الأديان وكور رما ووحو كور رما قرآنك شريعتها يا آخرة يا جنة يا قبرك يا قيامه كور رماي واحد زمن كان جوج قرآنك كما ور رما لو حاكم مدبو دكتور نمد قرآنك كما ور رما لو آيات بركات با قرآنك إلهي كور رما دكتور نمد وآياته كلوا واشربوا ولا تصرفوا آيات دا لدى ميسترين انت هرؤوا كليا آيات دكتور نمد ودكور رما يسبوي markii ninkii gaalka loo macneeyayna wallahi quraanku waxba kama tagin buu dhakhtaradii baa waxay ku leeyihiin maanta war cuntada iska yareeya way xanuunadan badan oo umada hayo dhan meesha ay ka imanayaan waa caloosha waana xilmi kugu dhacayaan waa caloosha cunta ay ku jirtay oo cunto kale laga dabageeyay soonkii baa lagu sheegay caafimaad soonki قالدي با كل ورصوما وكوبي tobanka bilood bal ugu yaraan hal bil cuntada joojiye bay kuleeyay wal caafimaad ay saanay cilmigoogii bay ku gaareen inagana shariicad bal inooga dhiga shariicad marka ilaahay uu kuleeyahay yuriidu Allahu bikum al-yusra wala yuriidu bikum al-usra marka ilaahay uu kuleeyahay soonka waxa la inagu farad yeelay waxa la inagu tala galayba in la inii fudaydiyo in la inagu adkeeyo maaha fudaydka macna badan baa ka soo baxaya cibaadadii baa lagu fariidiyay caafimaadkii baa ku jira dhinac walba ilaahay nolosha uu ku fudaydiyo ugu salaadii ajar baa ku jira oo caafimaad baa ku jira soonka ajar baa ku jira oo caafimaad baa ku jira sadaqada ajar baa ku jira oo caafimaad baa ku jira oo xoolahaagii marka sadaqadii zakada aad ka bixiso bukhliga ka baxaya bukhliga waa sifo ما بحث بالي بخيل لماذا إلا صدقات الزكاة الله بحيه بويا صلاة مركات تكتو كبر كا بحايا صلاة كبر كي صارتا سوكون حنون كو صارا حشكنا إظهار العبودية كي ملك هاي كي مسكين كاها لما يرقوا عضب قادنا يان جبل عرفة كرك إذا استاقيان هلقاس إلهي كبريان وأضوني مموجن وعلى ليه وكا كل لوقوا بسلتان كاد بريا سر وإلهي بريا ما كلا سريسان وعلقوا كلا سريا إن أكرمكم عند الله أتقاكم كين يقول لك عبس قبضا بإلهك تسنين يقول ما مصبط بركا دين تاني إلهي وحاو نوسيي إن أدون كان آخراء وناكو هلو ونبكا كقبحنو وفقرك كقبحنو وذلك كقبحنو وضادون نمدي يقحوتي نمدي كقبحنو ما عند مسلمين تو أيكو دين الإسلام كهايستا أي ما أنت دتك أدوية اللو قرمنا يوائيك دتك أدوية أقول لي توائيك دتك الله تلين يوائيك دتك وحلود إملين يوائيك هذا مسلم أو دين تنهايستا سيدا لقوقو تليا سببت وامحي دين تنكرر الشيء بكذا وابوك مركز نبوك معجرة صومالب بقولو تلي بقول بينو تلي سنبوك بقولو تلي بقول باكو تلي دتك أدوك أقول لي تباكو تلي لا نواب بوكتا بوكتا أنت سوا محي ضعف الإيمان إيمان كنا ضعيف وذي وايلا أيا نين دكتور وتجيب لي بركابي ولا هذا رجعنا اللي جاهيا يمسك جربة هاي ولا شنية سيدة جربة هاي بكوي رجعنا اللي جاهيا يو رجع حنونا يا بركاس الواجب وقوعا بركاب الجلبة أنا والله جاهيا وعرقب وقوعا وعر مدحنا والله جاهيا يا مدحنا بيجوح عرقب وقوعا علاشنا والله جاهيا قبوا وقوعا وحلي وحو الشيكتبه وحو كيداو قبوا وقوعا بركاب وضيق بحناقي بركاب الأذر حناقي بوي وان حناقي والمحل حناقي واي وحن كويديب قبوا وقوعا بعد لا ده هاي بركاس الحناقة أمت مدينة أسجن قبوا وقوعا بكوي وحن ما عند مسلمين تدباتها يستطردن وحو وقوعا ما تغنان وضعف الإيمان إيمان قوة ضعيف مسلمكم وارون إلهي وان جعل لهي ونبينا وان جعل لهي عليه الصلاة والسلام ودين تادين أبرت وان جعشهي ودين تادين إن تكون قنت وان جعشهي
ودين هذا إن كاموقة وجعشها لكن أودي وحصل اللي قبنا يبقى كامقا مثال كان ومحي وأن قاد شونا يا عنتو الربايون عنو عنتو اللي عتدي الله كان مركو هالكا ودويبه وقرار عانا يقول قبطة بيقول عاني بقى لقو قبطة وقرار وصوع عليه عنتو بريسي كان والله كان مركو هالكا كان وقرار بويري وحل وحي الله كان هالكا مركو مري وقرار نفتي سيوي دون الساعة ونقع جونا يا لكن هالكا مركو مريم وقرار وصوع علينا يا مركا دمانيكا وحل قولت سلين وروا نختارك تقبل وروا بقتاني نختارك يقول تبي dhiigii baa laga qaaday waa la baaray waxa la ogaado le adiga kaniica kugu dhacday malaria ku haysa xallo bilaabaya marka daawadii malaariyada loo bilaabaya ama siroba lagu taaga ama kaniin baa la siin daawada la siin maxay tartaa ma taqaanaa dhiigga ayay ka safaynaysaa kaniicada shay'an fa shay kolba in yar ayaa marka waxa u soo bilaabmay marka cuntada inuu dhadhansado قلب أير مثال كانوا ما أنت وعينك وأن جعل هاي دينتنا هذا اللي يرادوا إنه نجلو الرعان والصحابة قد يدعوا ويجعله لكن محاكا غالبا بيأدي مجتمعي كلا كجيدنا إن صلاتك تواجع شيء لكن محاكا هرجوغا إيمانك ضعيف صادر بعد جماعة الدعوة وحين إليه والخروج كبحر ورلاح يدرت وبحوا إيمانك نسوه جديدية وهذا خروج كبحدان خروج كجامعة علم عمليات كصبرا مسكيت كفردي كيسات جعلان ما سحن فردي كيجات صون عيدون تدا جماعة الرعب دتك حن للسعود كوجا ونعيدون تمر كدم دتك ونكسروا بجعلان للصعود عندها كوارنا أنه عندها صارني وشيء مجرب صوتها بنويا عصقي labadii sawaalid ku xuma markuu jamaacada uu la bacay waxa uu soo noqday isagoo labada waalid barruwa qaafilkii markuu jamaacada uu la baxay uu ka soo noqday 4 bilood waxa uu soo noqday isagoo daakira oo afkiisa digriga ka dhigila kii masaajiddu dhex fadhiisan kari lahaa ee maqaaxiya suuqa fadhiya qayilayay markuu jamaacada uu 4 bilood uu raacay waxa la arkay isagoo jaadkii iyo maqaaxidii intuu daayay masjidka dhex fadhiya hadduu diintii ka fogaana waxa la arkay isagoo diinta jecel oo culimada la fadhiisanaya isbedel المرء على دين خليله فلينظر أحدكم إلى من يخالل بنجوري صاحبك دين تأو قبو كات صاحب كدقة دين تيسا أي دين كون نغني يسبو نجوري أنه ولو نك الله صاحب إسكاك لذلك جماعة الدعوة رونا هانتي أن علم بدني نبري مايان ونوغهي لكن وحي كبريان متغانا مجتمع في عمك وحريان مسكيت كفدي يسكو جعليسينيا إن العلماء وحكبرة تبي كبريان إن العلاقات حلقات كلا يلا تبي كجعليسينيا دتك في عن السعود كوجا يلا بدي كوجا يا تسوى جعلان جماعة هذا إن شاء الله هذا إن هذه الله درت وضع بحدان شوف يعمل هذا ده إن شاء الله هذا هاي ورمى بحيسانا بس حيس كل هذا دوسوما إلا مجتمع ماشى في الدنيا الموضوع بدلتهين قالوا حين مركز كل الله فصحين وبحوض ديارو لقوا قري ما يبلغ عنته وتاق ولا قدوا عينه هذا خروج كجماعة هذا الراعي ويدان خروج كلا بحي سايوغو خروج كلا بحي ما تقانا خروج فيسبوك هبيني مالك هم عندهم كذا صدع عيان مقاحل فرديو يكال إيغو لبدا وقت كذا حكون دمين مر عليه مرقد فصح حق الشو هدو فصحوا لبا بلود يهي جماعات كافرت الرع هدو بل يهي لبا تنعش الرع انت كلاني هو يدا يا أباها وخدمه بحد على بحايو حكمت بدن باكو جرت بشا لحاد صدبات سديدات جبوت لبا أسبوع كهر شورا أن لهين وحقو أن لقو قاري ومساجد لو غيبيي شنبغل iyo 25 jamaacayn la saaro waana xilliga fasax iskuulada weeyaan hadday dacwada Djibouti ka socon lama arkeen baanaka xilli waxay soo martay aad oran jirteen reer Djiboutigii baasaaye gabdhihii dirac sitay baa nagu soo xagaa baxee war bal nagala hadla aad oran jirteen baa soo martay soo ma hadde
لكن هو اسبدل شمانته سيدي ما هو وضعه هو اسبدله ما يقول بخير ما كان موقع شرك واجرا لكن خير كن واجرا مات ودعودي بقى كسعوتا وجماعة دقني جاي ماذا إن هذا نكون بحثان بالله بهاي مركز سو ديار منين إن شاء الله الله ينبغى أنفعه الدم بيجنا الله دافو دم بيجوا والدينتنا الله دافو دينت الله ينوم معانيو مرل كان الله شافيو موتات كان الله ونحريستو أمن إيمانك الله ينوم زياديو يعني علماءنا خصوصا شيخ عبد الله هو الرجال الله ينوم عافيه وحنا قد انتنا الله ونحريسته ويحب كان عافماد الله الصيو أمن إيمان كان الله ينوع أتكيو لأن يرد ولاية قودها الله هنا هديو تبدلوا دعضونا جريه قبل المراد كيسو معصيلة هنا إلهي قعنتها ميدك هكسيو لأن يردنا إن شاء الله تعليمتا أي كجرانا تددكوغا يدين تودي دلكوغا فعد الله كدغو قارينكونا دلكينا آمنا وركي وحبرتي بها تهريبه كورم حاجات صعوتين حاجات صعوتين لبا تسنة كي واحد برنا يبقى تهريبيا لبا تسنة واحد برنا يساعداد يورب قشو والزيرو تعليم هذا وككع صار مو تقنا تكسيله نقول تكسيله باركي كقالوا البابور تاي دكتور بدلالين هذا دكتور هذا تعليم تودك كاجا كبرة تودك كاجا قيمة كلها تودك كاجا آمن وأدقس آمن والدين تنا آمنه وإنكم هنأس آمنه وقل كان خير بكبو حي خيرات قوده كان الله صباحه هم بيرنو او غعنتا فرسمدها كشقيسينو الله انو دمداف خيرات دلكينا كبوحنا الله انو توسو ودنكينا قيميhiisa iyo wanaaga uu leeyahay Allah ina jeclaysiyo dhalinyarada qalbigooda dhulka gaalada loo qaatayna Allah ka soo jeediyo sallallahu ala nabiyina muhammad